السلام عليكم مركله كل الحساب بدن برنامجkan waxaan ku soo qaadanaynaa 10 dal ee ugu dadka badan qaaradda Afrika qaarad ku caan ah baaxad weyn iyo kala duwanaansho dhaqameed Afrika waxa ay ka kooban tahay dhul ahaan ku dhawaad 13 milyan oo mayl oo laga jibaaran oo ay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 1.3 bilyan sida laga soo xigtay website-ka World Population Review Afrika waxay kaalinta koowaad ku haysataa qaaradda ugu da'da yar dadka ku nool iyadoo 41% kamid ah dadkeeda ay ka yar yihiin 15 jir waxay ka kooban tahay 54 dal Afrika waxa ku nool dad kala duwan luqad ahaan muuqaal ahaan aqoonsiin iyo dhaqamo kala duwan waxaan soo aruurnay dulmar kooban oo ku saabsan 10 dal ee ugu dadka badan Afrika sida ku cad xogta banka adduunka waxaan u soo kala hormarinaynaa 10 ilaa 1 haddaba aan guda galno kaalinta 10aad waxa ku jira Suudaan iyadoo oo dadkeedu ku dhow yihiin 43 milyan oo qof Suudaan waxay ka mid tahay wadamada Afrika ugu dadka badan dalkan waqooyiga Afrika wuxuu xuduud la leeyahay koonfurta Suudaan Itoobiya iyo Masar inkastoo inta badan dhulka Suudaan uu yahay oomane ama saxare haddana waxa ay hooy u tahay dhowr degsiimo oo waaweyn oo ku teesan jiinka webiga Nile 9 Algeria waxa loo tixgeliyaa dalka ugu weyn Afrika Algeria bad dhuleedkiisu waa in ka badan 919 oo mayl oo laba jibaaran intiisa badan waa laba degaan dadkiisa waxa lagu qiyaasaa 43 milyan oo qof dadka Algeria ayaa degan magaalooyinka xeebaha ama kuwa ku yaal agaarka ilaha biyaha kororka tirada dadka ee sanadlaha ah waxa lagu qiyaasaa 1.85% waxa la filayaa in dadka Algeria ay labalaami doonaan sanadka 2050 8 Uganda dalkan oo aan bad lahayn kuna yaal bariga Afrika waxa ku nool qiyaastii 44 milyan oo qof kororka tirada dadka ee sanadlaha ah waa 3.32% Uganda ayaa kamid ah ummadaha sida xawliga u koraya da'deeda dhexdhexaadkuna waa 16 jir 7 Kenya waa dal caan ka ah Afrika wadankan ku yaal bariga Afrika dhaqaalihiisu si xawli ah u korayo dadkiisu waxa lagu qiyaasaa 52 milyan dadka Kenya intooda badan waxay ka yar yihiin da'da 30 Kenya ayaa kamid ah wadamada ay ku nool yihiin dadka ugu da'da yar qaaradda Afrika sanadkii waxa dadka Kenya ku kordha tirada dadkaasi 3.69% 6 Tanzania waxay ku taallaa galbeedka badweynta Hindiya ama bariga qaaradda Afrika Tanzania waxa ku nool dad ku dhow 58 milyan oo degan kobaca dadkooda ayaa gaaraya sanadkii 2.98% iyadoo la filayo inay laba laamaan dadka dalkaasi 24 sano kadib 5 Koonfur Afrika waxa loo aqoonsaday dalka shanaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika Koonfur Afrika waxay hooy u tahay in ka badan 58 milyan oo qof dalku hadda wuxuu leeyahay koror sanadle ah oo dhan 1.28% oo aad uga dhacay heerkii ugu sareysay 1983 markii ay dadku kordheen sanadkaas waxa 2.8% waxaana ka mid tahay wadamada ugu horumarsan qaaradda Afrika 4 Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay samaysay koror cajiib ah kadib markii ay si xawli ah u korortay tirada dadka dalkaasi sanadihii dambe Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo hadda waa wadanka afraad ee ugu dadka badan Afrika waa dalka labaad ee ugu weyn Afrika xagga dhul ahaan iyo mid kamid ah wadamada ugu kobaca badan adduunka laga soo bilaabo 1990 ilaa 2010 wadanku wuxuu kordhiyay tirada dadka oo ahayd 34 milyan ilaa 64 milyan dadka DR Congo waa ku dhawaad 87 milyan oo qof 3 Masar wadanka Masar waxa ku nool in ka badan 100 milyan oo qof
boqolkii 43 dadkaasi kamid ah waxay ku nool yihiin magaalada Qaahira iyo magaalooyinka ku tirsan webiga Niil. kororka dadka sanadlaha ee Masar waa 1,800,000 oo qof oo u dhiganta 1.94 boqolkiiba dadka Masar. 2 Ethiopia waxay ku taalaa geeska Afrika. wadankan aan badal lahayn ee Ethiopia waa wadanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. waxaa ku nool qiyaastii 112 milyan oo qof oo leh koror sanadle ah oo gaaraya 2.6 boqolkiiba dadka Ethiopia. Ethiopia waxaa ku nool dad iyo qowmiyado kala duwan, dhaqan ahaan, diin ahaan. waxaa ku nool in ka badan 80 qowmiyadood oo asal ahaan kala duwan. ugu dambeyn kaalinta koowaad waxaa ku jira wadanka Nigeria. Nigeria waa wadanka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Nigeria waxay hoy u tahay in ka badan 206 milyan oo qof. sanad kasta dadkeeda waxaa ku kordha ku dhawaad 5,500,000 oo qof. sidoo kale Nigeria waxay kaalinta toddobaad kaga jirtaa wadamada ugu dadka badan adduunka oo dhan. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabanayaa warbixintaasi oo channelkan uga barateen ka waramida qaaradda Afrika. barnaamijyadeennii aad nooga barateen insha Allah waan idin joogtiin doonaa toddobaadkiina dhowr barnaamij ayaad naga daawan doontaan. channelka dad ku cusub tahay subscribe saar oo nagu soo bir dhiirigelin ayay inoo tahay. sidoo kalena muuqaalka like saar kuna faafi baraha bulshada intii karaankaaga ah. nabadgelyo.